meeshan fariina u jira ilmahayga mustaqbalka horto waani hiili doonaa ka cabsanina halka mar aan hiili ii baahantiin waa inaa aaba fiican idin dooraa insha Allah sida daawada fiidiyowga ka soo aragtay waa boqorada isteelka oo sheegaysa ciyaalkeeda mustaqbalka in ay u hiilin doonto ciyaalkeeda mustaqbalkana in ay garab taagan tahay aaba fiicanna in ay u xulayso ayna garab taagnaan doonto muuqaalkan oo intaysan gabadheeda ay dhalin boqorada isteelka ka hor ay live soo gashay ay ku dhex cadeysay barteeda TikTok si aan kula wadaaga fadlan nagu soo biir oo janaalka subscribe noo dhigan baleelkana u furo muuqaalkana like tala dhac hambaliyeen waa dhankiina wixii fikir aad ka qabteen qaybta commentiga noo wada boqorada isteelka oo live barteeda TikTok ka soo gashay inta aysan gabadha dhalin ayna ku cadeynayso in ay gabadheeda mustaqbalka u heelin doonto aabo wanaagsan ay u xushay ayna garab taagan tahay wax walba oo jiro asxaabta idil oo boqorada isteelka iyo dadka oo asxaabta ay caanka ay baraha bulshada ka isticmaalaan oo dhankoodana hambaliyeen badan aad u soo diraya maadaama boqorada isteelka bil Ramadaan ay dhashay gabadh ayna bisha ugu qeyrka badan bil Ramadaan ay dhashay gabadheeda ay inteena live ka soo galin ka horna ay ayada ku cadeynayso barteeda TikTok in ay gabadheeda u heelinayso xili walbana ay garab taagan tahay wax walba oo dhacone ayna cidleen doonin ay garabkeedana cidleen doonin ay saasi u garab taagan tahay boqorada isteelka oo live-keeda baraha bulshada idil aad u qabsaday dad badanna ay ka falceliyeen dad badanna ay u hambaliyeeyeen maadaama wax yar oo kooban kadib ay sawir laga soo qaaday boqorada isteelka oo gabadheeda haysato ayna dhashay ay ayada gacanteeda ku haysato dadka idil oo ayada oo ku xiran barteeda TikTok iyo baraha bulshada meesha ay ku leedahay haykal iyo boqorada isteelka ay aad ugu hambaliyeenayaan ayada iyo saygeedana hambaliyeen ee dhankaasi u soo marinayaan hawada boqorada isteelka oo live-keeda yar oo TikTok ay soo gashay aad baraha bulshada falcelin iyo dad badan ay su'aalo iska weydiiyeen maadaama ay leedahay gabadheeda mustaqbalka waan u hiilinayaa xilli walbana waan garab taaganahay oo ma garab cidleen doono wax walba oo dhacona garabkeeda ayaan taaganahay baraha bulshada idil ay intaas hadalhayn ka dhalisay dad badanna ay aad ugu hambaliyeen saacadooyin kadib marka ay isbitaalka gashay ay gabadheedan dhashay muuqaal sibir cadeynayna asxaabteeda ee ugu soo cadeysay ayna u soo dhigtay baraha bulshada ayna ku cadeysay in ay gabadheeda ayadoo caafimaad qabta ee dhashay ayna dhabta ku haysato haddana ay faraxsan tahay ayada iyo saygeeda lamaaneeda haykal ay ku faraxsan boqorada isteelka in ay gabadhooda dhabtooda ku haystaan ayna haddana faraxsan yihiin ay wada dhaqmayaan qoys isku faraxsanna ay yihiin hambali ayaan leenahay ilaahay ha iskugu barakeeyo ubadkan ubad ka kheyr qabana Allah siiyo wixii fikir aad ka qabtin qaybta commentiga noo wadaag muuqaalka ayaan kula wadaagi doonaa sidaas iyo ma salaama ilmahayga hal meeshan fariina u jira ilmahayga mustaqbalka horto waani hiili doonaa ka cabsanina halka mar aan hiili ii baahantiin waa inaa aaba fiican idin dooraa insha Allah